Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kusoo dhawaada Pro Production Challenge Everything. Waan anigoo ah Cabdiwali Maxamed Abuukar. Waa meesha aad ka barataan barashada kombiyuutarka sidoo kale multimedia. Pro Production Challenge Everything. Inta badan programka loo yaqaano VLC waa program ku shaqeeya Windows iyo Mac kaasoo ay shaqadiisu tahay inuu daaro maqal ama muuqaal. balse waxaan ku baran doonaa cashirkan wax ka duwan macluumaadka aad ku taqaana VLC kaasoo ahaa inuu daaro maqal iyo muuqaal. balse maanta waxaan ku qaadan doonaa 15 macluumaad oo dheeri ah kaasoo leh VLC aadan adigu aqoon u lahayn. anigu waxaan noqon doonaa qofkii ku bari lahaa, adiguna waxaan noqon doontaa qofkii ka baran lahaa macluumaadkaas dheeriga ah. waa cashir ku saleysan 15 macluumaad oo dheeri ah kaasoo leh VLC. balse waxaa dhici kartay dadka qaarkooda ama qofka hadda daawanayo inuu in badan yaqaanay, kuwa qaarna inaysan in badan aqoonin. balse waxaa hubaala waxyaalaha aan ku tusi doono hal ama labo inaadan ka fahansanayn. haddii aad tahay qofka cusub, fadlan waxaad ogaataa 15 shay oo VLC quseeyo aadan hore u isticmaalin inaad maanta baran doonto. qaybta koowaad, ma og tahay inuu awood u leeyahay VLC-ga inuu converter kugu samayn karo maqal iyo muuqaal intaba? sidee aad uga samaysan kartaa? waxaad furaysaa calaamadda media, kadibna waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay converter/save. kaliya ayaad ku siinaysaa, isla markii wuxuu kuu keenayaa dialog box. kadibna waxaad leedahay add ama soo geli. add ayaad leedahay, wuxuu kuu tilmaamayaa faylkii aad rabtay inaad converter garayso. anaga waxaan dooranaynaa meeshuu faylka inoo yaalay. okay, waxaan dooranaynaa marka muuqaalkii aan u baahannahay inaan bedelno. faylka ugu horeyn waxaad arkaysaa inuu destinationkiisa ama formatkiisu yahay MP4. waxaan rabnaa inaan ka dhigno format kale. siyada ugu dhigi karnaa markii aad joogtid halkan oo faylkii soo dooratay, kadibna aad dhahdo open, waxaa arkaysaa inuu kuu keenayo halkan faylkii aad u baahan tahay inaad converter garayso. awood waad u leedahay inaad dhowr xaba kale soo geliso, balse anaga waxaan ku qaadanaynaa halkan muuqaal. kadib waxaad arkaysaa qaybtan hoose inay ku qoran tahay convert/save. halkan inaad furaysaa, waxaad ka dooranaysaa convert. kaliya ayaad ku siinaysaa, isla markii waxaa arkaysaa faylkii meesha source-ga ahaa asigoo kaa rabo destination. inta aadan destinationka aadan dhigin ama faylka meesha aad rabtay inaad ku save garayso inta aadan dhigin, waxaad u baahan tahay muuqaalka aad soo gelisay waa MP4. maxaad rabtaa inaad ka dhigto marka? si aad u bedesho, halkan ay ku qoran tahay profile ayaad kaliya ku siinaysaa oo ishaan ah. kaliya marka aad ku siisid, waxaad arkaysaa waxyaalo badan inay halkan ku jiraan. waxaad ka dooranaysaa markaas wixii aad isdhihi kartid waad u baahan tahay. for example, aniga waxaan ka dooranaynaa midkan ay ku qoran tahay TS oo ah MPEG-2. kaliya ayaan ku siinaynaa, wuxuu weydiinayaa marka awood waad u leedahay inaad sii jaanji garayso. si aad u sii jaanji garayso ama waxyaalo kale aad ugu sii bedesho, waxaad dooranaysaa calaamadan ay u egtahay sida kiyaawada oo kale, kaasoo lagu magacaabo edit ama setting. kaliya marka aad siisid, kadib waxaad dooranaysaa wixii aad markaas u baahan tahay. for example, ani waxaan rabaa inaan ka dhigto FLV markii aan ka dhigto, waxaad arkaysaa waxyaalo badan inuu halkan saarayo close. kuwa qaarna aad ku arkaysa inuu tigti saaran yahay. kuwan waa anaga hadda ma qaadanayno, balse waxaan qaadanaynaa qaybta converterka ah. okay, sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad video codega aad bedesho. awoodee u baahan tahay inuu ku bedelo, ama colorkee ugu baahan tahay, ama resolutionkee ugu baahan tahay, adiga og cabirkii markaas aad u baahan tahay. okay, anaga sidiisa caadiga ayaan ku dhaafaynaa, ama dooro VLC ama dooro MPEG ama wixii markaas format ee aad u baahan tahay. anaga hadda waxaan dooranaynaa meeshan ay noogu qoran tahay MPEG. kadib waxaan leenahay save. markii aan dhahno, hadda waxaa ujeedaa halkan startiga inuusan active ahayn. si uu active u noqdo, wuxuu rabaa faylka meeshii aad ku save garayn lahayd inaad u tilmaamto. si aad ugu tilmaamto, halkan ayaad leedahay browse. kadib waxaad dooranaysaa desktop-kaaga. kadibna waxaad leedahay faylkii aad u baahan tahay magaciisa. waxaan u malaynaa faylkan originalkiisa inuu ku qornay Ramadan, balse formatkiisana uu yahay MP4. balse hadda midkan waxaa ku qoranaynaa test. okay, kadibna waxaan leenahay save. kadibna waxaan leenahay start. marka aad tiraadid, waxaa arkaysaa marka riigma halkan inuu inoogu bilaabanayo oo inoogu geynayo meesha ugu dambeyso. markaan hadda dhaho start, haddii aad rabtid inaad stop garaysid, halkan ayaad tegaysaa, stop ayaad leedahay. haddii aad u baahan tahay inuu socdo converterkiisa, farahaad ka qaadaysaa, waxaad arkaysaa haddeertan inuu inoo wado converterkii.
haddii ay dhacday inaad converterka aad isleedahay alele faylkii qalday ama faylkan ma ahayn faylkii aan raba inaan bedelo stop ayaad leedahay hadda hadii aan dhahno stop kadib waxaad arkaysaa faylkii inuu stop gareysmay balse muuqaalkii inuu bedelay waxaan hubnaa muuqaalkii koowaad inuu ahaa mp4 kan haddaan dhahno property-giisa ayaan fiirinaynaa waxaan arkaynaa inuu inoo dooran yahay ts sidoo kale muuqaalka ma inoo daarma aan soo qaadno aan soo daraab garayno aan ku duldayno intaan waxaa arkaysaa automatically inuu inoo daaray muuqaalkii okay qaybtan VLC hiya iska xirnaba okay waxaan arkaynaa marka inaan VLC awood u leenahay inaan wax ku converter gareyn karno ugu dambeyn ma hadda waxaad ogaatay in aad awood u leedahay VLC-gaaga inaad wax ku converter gareyn karto qaybta labaad ma ogtahay in VLC uu awood u leeyahay inaad muuqaal aad daaratay inaad ka sii duuban karto muuqaal ama in yar in alaal inta aad jeceshahay inaad halahaas yarta ah aad record ku samayso si aan u samayno ama aan kuu tuso ugu horreyn waxaad samaynaysaa waxaad furaysaa media kadib waxaad dooranaysaa faylkii aad u baahan tahay inaad furto waxaan soo dooranaynaa muuqaal alaala muuqaalkan u baahannahay waxaan soo gashanaynaa okay waxaan soo gashanaynaa midkan kadib waxaan leenahay open markii aan dhahno waxaan arkaynaa inuu inoo soo baxay muuqaalkii waxaan rabaa marka tusaale ahaan halaha yarta ee horudhaca ah aan ku tusno okay waxaan u malaynaa inaad taqaanay in falaarada ama kor iyo hoos iyo bidix iyo midig ama falaarada qofba sida u yaqaano ama arrowska inaad hadaad midig aadid inuu filinka dhinaca midig u ordaayo haddii aad bidix taabatidna inuu dhinaca bidix u ordaayo okay waxaan rabaa marka halahan yartaa inuu inoo soo celiyo waxaan rabnaa marka halahan yartaa inaan ka sameyno recording waxaan rabnaa halkan halahaas yar ayaan rabaa inaan duubto sideen ku duuban karaa adigoon converter gareen ayaad duuban kartaa waxaad ku duuban kartaa booskii aad u baahan tahay ayaad dulgeynaysaa markaad dulgeysato waxaad furaysaa halkan ay ku qoran tahay view kadibna waxaad ka dooranaysaa advanced controls click markaa ku siisid waxaad arkaysaa isla markiiba calaamad yar oo gaduudan oo lagu yaqaan qaybta recordingka inaad ku arkaysid kadib waxaad leedahay play markaan dhahno isla markii waan record gareynaynaa si aan kuu tuso okay record ayaan leenahay intaan record dhihin waa inaan dhahnaa play kadibna record ayaan leenahay aan isla socono si aan u joojiyo isla recordka ayaan ku dhufanayaa waxaan ku dhufanayaa record dataawtid asa recorda isla asiga dad ku celisid waa stop okay muuqaalka aan hadda duubay sideen ku heli karaa waxaad ku heli kartaa inaad furto file menu ama wuxuu dhigayaa my videos marka si aan u soo gelino muuqaalka waxaa furaysaa open kadibna waxaad dooranaysaa video isla markii waxaa arkaysaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan ku duubna VLC recordingka saacadda xilliga everything sidaan kugu soo sheegaa kadib waxaan leenahay open waxaa arkaysaa gobolka yarka inuu inoo duubay waliba kugu duubay colorka high quality ah waxaa loogu talagalay VLC-ga hal sano wax laga joogaan u malaynaa wuxuu lahaan jiray in aad awood u leedahay YouTube muuqaal ku jiro inaad ka soo copy gareysato aad keensato halkan kadibna aad soo download gareysato waxyaalahaas ayuu lahaan jiray balse hadda waa ay ka joojiyeen casharka haddaad qaadanaysid wuxuu ku ahaan lahaa 16 shay ayuu ahaan lahaa sidaas darteeda ayaan ugu dhignay 15 shay halkan waxaad ku baratay inaad duuban kartid gobolkii aad u baahan tahay oo lagaa rabay inaad kilibka yarka ah aad ka record gareysato adigoo isticmaalayo VLC qaybta saddexaad ma ogtahay VLC-gaaga inuu awood u leeyahay inaad duubi kartid desktopka shaqada ka socda for example sideed ku duubi kartaa shaashada ee markaas aad isticmaalaysid haddii uu ahaan lahaa tusaale ahaan qof baa ku yiri waxaan u baahanaynaa faylkan sidee baad u isticmaashaa waxaad rabtaa inaad u duubto ama aad computerkaaga shaqadii aad ka qabanayso dhan inaad u duubtid si aad qofka ugu dirto si aad u samayso waxaad furaysaa media kadibna waxaad ka dooranaysaa converter and save click marka aad siisid automatically wuxuu ku keenayaa halkan intaan oo dhan ma taabanaysid si toos ah waxaad u aadaysaa capture the voice markii aad joogto qaybtan capture-ka ah si automatically waxaad furaysaa qaybtan ay ku qoran tahay capture mode-ka halkan inaad furaysaa waxaad dooranaysaa desktop-ka ama markaas wixii aad u baahan tahay halkan waxaa dhici karta inuu ku yahay
1% 1 frame per second balse anaga waxaan ka dhiganaynaa 10 frame per second kadibna waxaad leedahay play ama converter marka aad tiraahdo wuxuu ku weydiinayaa waxa aad rabtid inaad duubtid halkee baan ku dhigaa waxaan leenahay marka ugu horeen waxaad ka dhigaysaa converterkayga inuu noqdo mp4 kadibna faylkayga uu ii dhigo desktopka kadibna waxaan leeyahay shaashad duubis ayaan leeyahay kadib waxaan leenahay save kadibna waxaan leenahay start markaad tiraadid isla markii waxaa arkaysaa computerkaaga inuu kuu duubayo wax walbo aad markaas shaashada ka qabato haddii aad rabtid inaad markaas joojiso kadib waxaad leedahay stop markaad dhahdid isla markii waxaa arkaysaa faylkii ama shaashadii wixii aad ka qabatay inaad isla markiiba aad ka dhex arkaysid waad u jeedaa computerkii aan computer kale kasii dhex duubnay ayuu ahaa okay qaabkaas waa qaabka ugu fudud ee aad awood u leedahay computerkaaga shaqadii aad ka wadid inaad record gareyn kartid haddii aad qof la wadaagi lahayd iyo haddaad adiga isticmaali lahayd qaybta afraad ma ogtahay computerkaaga inaad awood u leedahay haddii uu ahaan lahaa external camera iyo internal camera intaba inaad ku duubi kartid computerkaaga dhexdiisa sidee ugu duubi kartaa waxaad furaysaa calaamadda ah mediaha kadibna waxaad halkan ka raadinaysaa meeshan ay ku qoran tahay open capture device sidoo kalena waa kaga tegi kartaa qaybta converterka ah balse hadda anaga waxaan dooranaynaa si toos ah si aan u aadno waxaan dooranaynaa open capture device klik markii aan ku siino isla markii waxaad arkaysaa inuu inoo keenayo meeshii aan hadda casharka saddexaad aan ku qaadanay halkan ayaad furaysaa waxaad ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay direct show klik ayaad ku siinaysaa isla markii wuxuu ku weydiinayaa computerkaaga inta ku xiran haddii uu ahaan lahaa graphic display iyo waxyaalo la halmaala balse hadda anaga waxaan isticmaalaynaa kamerada waxaan filayaa inaan hadda halkan furi doono ay ku qoran tahay dooro videoga device-ka aad u baahan tahay halkan ayaan furayaa waxaan dooranayaa kamerada klik markaan ku siiyo isla markii waxaa arkaysaa inuu kameradii nalkaaga ka daarmayo waxaad furaysaa qaybta codka klik ayaad siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa codkii markaas aad u baahan tahay balse anaga hadda waxaan isticmaalaynaa microphonekan haddaad isticmaalaysid external microphone waa isticmaali kartaa midkan okay waxaan sameynaynaa marka waxaan dooranaynaa microphoneka kadib waxaan leenahay video size-kii aan u baahanahay inuu ii duubo so marka waxay ku xiran tahay kameradaad isticmaalaysid resolutionkeeda balse ana hadda keyga waa 1280 lagu dhuftay 720 sida tan markaad tiraadid kadibna waxaad leedahay play isla markiina wuxuu ku weydiinayaa meesha aad rabtid inuu kuu save gareeyo hadda halkan ayaan u tilmaamaynaa browse ayaan leenahay mar walba u tilmaam faylka aad rabtid inuu kuu duubo waan save gareynaynaa okay faylka magaca aan u bixino waa fayl magac badan waxaan u bixinaynaa okay web camera ayaan leenahay okay web camera markii aan dhahno kadibna waxaan leenahay save kadibna waxaan leenahay start markaad tiraadid waxaa arkaysaa automatically kameradaada shaashadiisa inay nalka daarayso kadibna ay raadinayso wixii markaas la duubi lahaa hadda waxaan halkan ku haynaa geed yar oo wireless charger ah kamerada ayaan ku aadinay kadib waxaan leeyahay stop ayaan leeyahay ama jooji isla markii waxaa arkaysaa desktopkaaga inuu kuu soo dhigayo faylkii markaas aad save garaysay casharka shanaad ma ogtahay computerkaaga inaad awood u leedahay adigoo isticmaalaya VLC kilibkii aad u baahan tahay inuu maanta dhan kugu soo celceliyo tusaale ahaan aniga hadda waxaan rabaa inaan soo geliyo muuqaalkaas aan rabo inaan ka isticmaalo meeshii aan markaas ani u baahanahay halkan waxaad ku arkaysaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee markaas duubaynay okay waxaan furaynaa marka muuqaalka meeshuu inoo yaalay okay waxa halkan inoo yaala filimkan ayaan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay open markaan dhahno waxaan arkaynaa inuu shaashada inoogu soo baxay muuqaalkaas oo ah midkii filimkii aan markaas daaranay okay dhaxdan camal markii aan mareyno ayaan waxaan rabaa clip yar oo aan jeclahay oo kale inaan isticmaalo for example okay waxaan rabaa marka halahan yartaa inaan soo ceshto sidee baa ku soo ceshan karaa halkan ee gabadha halkan fiirinayso ilaa iyo halkan oo atooraha dhinaca kala fiirinayo ayaan waxaan rabaa inaan ku soo celiyo sideen baan u soo celi karaa waxaad halkan ka arkaysaa inuu inoo saaran yahay recording capture AP iyo calaamada kale forwardka hore loo soconayo ama frame by frame ah waxa furaysaa si aad halkan kan inta uga soo bixiso
waxaad furaysaa view-ga halkaana kadibna waxaad dooranaysaa advanced controller. Okay, sidee baan ku duubi karnaa? muuqaalka ayaad play leedahay kadibna kan ayaad kili ku siinaysaa. waxaad u jeedaa calaamadda A-ga ah inay noqotay gaduud. okay, cabaar fiirso kilibkii aad u baahan tahay halkan igu ekay meel alaal meeshaad u baahan tahay markii aad taagan tahay isla asiga ayaad haddana click siinaysaa. waxaa arkaysaa xalii hadda yarta aan duubanay maantoo dhan again and again inuu ku soo celcelinayo. see waa halii hadda dhag haddana waa biskooladii hoos laga soo bixinayo. okay, aan fiirino dhag haddana waa biskoolad halihii ayuu ilaa iyo in alaale inta aad jeceshahay uu ku soo celcelinaa. waa haddii aad u baahan tahay inaad qof intaas yarta ah ama aad ugu duubto mobile. waayo waxaa dhici karta mobileka markaad ku haysid labada gacan inaadan awood lahayn inaad isticmaasho muuska. kilibkaas yarka ah ayaad qabanaysaa, calaamadda ku soo celida ayaad taabanaysaa, mobileka ayaad ku record garaynaysaa, qofkana waad u diri kartaa, adigana isla markiina labadan ayaad hal mar ayaad kili ku siinaysaa. filimka si caadi ayuu kugu bilaabanayaa. waxaan u malaynayaa asigana waa qaabka ugu fudud ee aad in and out aad ugu samaysi kartid adoo isticmaalayo VLC. qaybta 6 ma ogtahay videoga aad fiirsanaysid, ma ogtahay muuqaalka aad daawanaysid ama codka aad dhageysanaysid aad ku dhageysanaysid VLC inaad awood u leedahay inaad ku darto haddii ay tahay muuqaal iftiin, haddii aad cod dhageysanaysidna inaad codka kordhisan karto ama aad naaqusin karto. sidee baad u naaqusin kartaa? automatically VLC-ga markii aad soo furto qaybtan hoose waxaad ku arkaysaa inuu ku saaran yahay waxyaalo badan, balse halkan ugu dambeeyo waxaad arkaysaa inuu ku saaran yahay calaamad yar oo aad u malaysid gear oo kale ama wax la xukumayo, kaasoo lagu magacaabo extended ama wax badan itusi. kilig markii aan ku siiyo waxaad arkaysaa inuu ku soo baxayo download boxkan qaybta koowaad waa audioga haddii aan halkan click siiyo waxaan awood u leeyahay codkii aan dhageysanaysid halkan inaad furtid kadibna aad ka dooratid cod alaala codkii markaas aad isdhigi kartid kombiyuutarkaaga sameecadiisa wuu ka soo bixi karaa. tusaalehaan dadka badankooda markay muuqaal daawanayaan waxaad arkaysaa sameecadda kombiyuutarkooda inay ku dhageysanayaan iyagoo isku dayayo codka ay dhageysanayaan cod ka xoog badan inay helaan. waxaa dhici karta marka halkan inaad ka dhex raadisid si aad ugu dhex hesho cod kombiyuutarkaaga sidaad hore u dhageysan jirtay cod ka xoog badan. awood waxaa u leedahay tusaale ahaan midkan oo kale base markii aad furato inaad awood u leedahay inaad kan korkaas geysato, kan korkaan aad geysato, kan korkaad cabir alla carbid laakiin isku dayin ina all of them kor geyso waayo waxaa dhici karto sameecadda kombiyuutarkaaga inay kaa gaarto jug. haddii aad u baahnayn inaad iska dhaaftidna halkan ayaad furaysaa, kaliya aad ku siinaysaa kadibna meeshan koodii hore aad soo dooratay oo ahaa enable ayaad ka qaadaysaa tigta disable ayuu noqonayaa. codkaaga wuxuu ku soo laabanayaa sida caadiga ah ee qofka uu caadiga u isticmaalayo. hadda waxaan joognaa waa qaybta audioga. waxaa arkaysaa qaybta kale ku xigta oo ah videoska sidoo kale awood waxaa u leedahay inaad ku dari kartid saturation. waxaan u malaynayaa inaan kusoo qaadanay Premiere Pro iyo Photoshop. okay, sidoo kale waxaad arkaysaa brightka, contrastiga, waxyaalahan oo dhan ayaad awood u leedahay inaad click siiso kadibna aad ku darto iftiinka ama aad ka jarto brightka wax alaala wixii markaas aad u baahan tahay inaad ku samaysato. haddii ay dhacday inaadan u baahnayn kadibna tigta aad iska qaadaysaa sidaadii hore ee originalka ayuu ku soo laabanayaa. qaybta 7 ma ogtahay inaad awood u leedahay muuqaal aad u baahan tahay inaad qof u dirto balse aad awood u sii leedahay inaad saarato logo ama qoraal. sidee ku samayn kartaa? ugu horreyn waxaan u baahanahay muuqaalkii aan rabay inaan saaro logo. aniga hadda halkan waxaa inoo yaala filim kadibna open ayaan leenahay. open markii aan dhahno okay, tusaale ahaan halkan ayaan joojinaynaa. halkan markii aan joojino okay, aan sii gudbina wax yar good. okay, halkan markii aan joogno ayaan rabnaa inaan filimkan u samayno logo. dadka badankooda waxay raadiyaan inay converter ku sameeyaan balse waxaad ogaataa adigoon converter aadan raadinin ayaad awood u leedahay inaad VLC ku samayso. sidee ugu samayn kartaa? waxaan halkan aan hadda ka soo baranay qaybta ah extendedka ayaad kali ku siinaysaa. waxaa qaybta kore ku arkaysaa videos effects. klik marka aad ka siisid halkan waxaad ku arkaysaa inuu inoogu qoran yahay overlay ama kasoo dulbixi. waxaa halkan ku arkaysaa inaad saarin kartid wax maskia. sidoo kale halkan waxaad ku arkaysaa inaad saarin kartid logo. kan hadaan kili ku siino isla markii waxaa arkaysaa inuu raadin karo logadii markaas kombiyuutarkaaga ku jiray oo aad rabtay inaad u isticmaasho muuqaalka. okay, inta aadan muuqaalka u isticmaalin waxaad u baahan tahay logada aad rabtid inaad saartid muuqaalka inuu ku diyaarsan yahay cabirkii aad u baahan tahay. tusaale ahaan hadda anaga waxaan isticmaalaynaa Photoshop.
ma ahan waxaan inaad isla markii hore aad ka samayn karto, laakiin muuqaaladaada waxaad u baahan tahay isla markiiba bilowga hore inay ku diyaarsan yihiin. haddii aad u baahan tahay inaad looga saarato, waxaa qasaba in loogada cabirkii aad u baahan tahay inuu ku diyaarsan yahay. okay, waxaa inoo soo kacay Photoshopki. waxaan rabnaa marka filinka aan rabna inaan anaga saarano loogada qaabkii aad u saari lahayd. ma ahan inaad inta VLC-ga furto kadibna loogada iska soo doorato kadibna aad rabto inaad saarato filinka. tusaale ahaan maxaa dhacaya haddii looga aniga ii diyaarsan yahay oo aan raba inaan saarto? wax yar ayaan rabaa inaan idin tuso. waxaa halkan inoo yaalo loogooyinkan anaga isticmaalno. okay, halkan waxaa inoo yaalo loogo oo ah midkeena caadiga aan isticmaalno. markii aan doorano kadibna aan dhahno okay, waxaa arkaysaa loogadii in ay ka weyn tahayba filinkii oo dhanba. hadda ma arki kartid loogadii because of waxaa arkaysaa inuu wayn igu adkaanaysaa inaa kan geeska aan usoo dhimo, inaan dhaho kasoo jar, inaan dhaho ku daar. xogar waxay igu qaadanaysaa waqti. si aad u xalisa marka waxaad u baahan tahay inaad furato Photoshop. haddii aadan adigu computerkaaga Photoshop ku jirin, isku day qof Photoshop ugu jira computerkiisa inaad koodii hore kusoo diyaarsato. okay, sidee baa u diyaarsanaysaa? ugu horeyn waxaad soo gelinaysaa loogadii aad u baahan tahay inaad ku shaqayso. anaga hadda waxaan soo gashanaynaa loogadii. okay, anaga waxaan soo gashanaynaa loogadii. loogada waxaan u malaynaa waa midka halkan inoo taalo, open ayaan leenahay. isla markii wuxuu inoo furayaa loogadii. okay, inta aadan loogadii marka ma ahan loogada inaad soo geliso hore aad ka save garaysato ma ahan. waa inaad ogaataa computerka ama faylka aad rabtid inaad save garaysid maxaad ugu baahan tahay. macnaa resolution ku isticmaala 90% inta ugu badan ama 99% waxa ugu badan resolutionka inuu noqdo 1920x1080. okay, maxaa sameynaynaa? waxaan furaynaa file menu oo halkaana ayaad furaysaa kadibna waxaa leedahay new markaad tiraadid waxaa dhici karta kala Photoshop inaan nahay inaad iga weyntayna suurtagal. inkastoo aad aniga 20 inoogu jiro balse aan kiciyo 18ka. inta badan waxaan aad u jeclaa inaan isticmaalo 18ka. reasonkan u jeclaadan insha Allah 10 ka soo diyaari doonaa. okay, waxaad furaysaa qaybtan kore ee ku qoran tahay video. meeshan ay ku qoran tahay film and video. halkan waxaad ku arkaysaa inuu ku qoran yahay HDTV 1080. kadib kan ayaa dooranaysaa kadibna waxaa leedahay create ii abuur. then waxaa arkaysaa inuu calaamado soo saaray. calaamadan wixii ka baxsan waa wax aanan quseynin waxa aad rabtid inaad ku samayso. insha Allah casharada soo socda Premiere Pro ayaan si fiican idinkugu qeexi doonaa. okay, loogada ayaad soo qaadaysaa, waxaad dul keenaysaa booskii aad rabtay inuu ku dul saarmo. okay, then waxaa leedahay right click ayaad leedahay, waa loo gareynaysaa. sababtaan u loo gareynay insha Allah casharada soo socda ayaan ku qaadan doonaa. balse kan waxaan ugu talagalnay inaad fahantid waxa anaga aan ka damacsannahay. okay, aan yareyno waliba. good. kadibna aan saarno booskan aan isdhigi karno wuu ugu macquulsan yahay. okay, kadib qaybta background-ka ayaad iska bixinaysaa. waa in uu noqdaa sidan. sababtaasaan ugu dhigay waxaa lagu magacaabaa transparency. kadib waxaad furaysaa file kadibna waxaad leedahay save as. kadibna waxaad ku qoranaysaa macnaa hadda aniga waxaan saaray gacanteeda midig qaybta kore. awood waad u leedahay inaad saarato bidixda, awood waad u leedahay inaad saarato dhinaca midig ee qaybtiisa hoose, awoodna waad u leedahay inaad saarato dhaxda ama qaybta bartamaha ah. balse waxay ku xiran tahay qaabkaad adiga u baahan tahay iyo meeshaad adiga ugu baahan tahay. balse aniga waxaan rabaa inaan saaro gacanteeda midig qaybta ugu koreeya oo halkaana. kadib waxaan rabaa inaan furo file menu kadibna aan dhaho save. kadibna aan doorto destinationka booskii aan u baahanahay inaan ku save gareeyo. kadibna waxaan furayaa qaybtan ah file type-ka aad u baahan tahay ama format-ka aad u baahan tahay. kadib waxaad furaysaa PNG. kadibna waxaad leedahay tusaale ahaan logo right qaybta midig up. macnaa waa dhinaca midig qaybtiisa kore. kadib marka waxaad leedahay save markaad tiraadid waad u jeedaa PNG ayuu igu save gareynayaa. PNG waxaa lagu magacaabaa file kasoo dulbaxayo, laakiin ma ahan hadduu desktop wallpaper-kaaga kuu saaran yahay waxyaalo kale automatically qaabkaas aad u save gareysa ayuu kuu soo baxay. waa inuu background-ka ama meesha aad rabtid inaad ku shaqaysid waa inuu ahaadaa transparent. insha Allah waxaan ku qaadan doonaa casharadeeni soo socda. kadib waxaad leedahay save markaad tiraadid wuu inoo save gareey. aan iska xirno Photoshop kama ku save gareeyaa maya. okay, mid kale ma isoo weydiin rabtaa maya. okay, waxaan leenahay browse. kadib waxaan dooranayaa destinationkii aan u baahanahay inaan loogada dul saaro waan dooranayaa. kadib waxaan leeyahay okay,
isla markii waxaa arkaysaa meesha ugu quruxda badan inuu ii saaran yahay. Okay, I think waxba isma bedelin, but no matter, muhiimadda waad fahantay. intana waa macnaha qaabkii meesha aad u baahan tahay inuu u bato, ma top u badana, ma right u badana, ma left u badana, dhinacii markaas aad u baahan tahay. balse hadda anaga meel fiican aan ka soo samaysanay. haddii aad u baahan tahay inaad qaybtan saas aad ka dhigato, saas ayuu ku noqonayaa. filinkaaga markii aad u baahan tahay inaad save gareysato, automatically waan aragnaa umaleynaa inaad soo converter gareysan karto. qaabkan ayaad soo samaynaysaa, kadib ayaad leedahay failkan iyo converter garey, automatically loogadina wuu ku saarayaa, filinkiina converter ayuu ku samaynayaa. waxaa ku soo bixi doono filin uu saaran yahay loogada. sidee u saaran kartaa qoraal? kan ayaad kali ku siinaysaa, waxaad iska qaadaysaa qaybta loogada, kan ayaad kali ku siinaysaa, VLC ayaa halkan ku qoran, magaceed u baahan tahay ku qor. tusaale ahaan waxaan ku qoranayaa Abdiweli markaan ku qorto, positionka ayaan dooranayaa. waxaan leeyahay center oo ah qaybta dhexe, waxaan leeyahay left oo ah dhinaca bidix ayuu aaday, waa arkaysaa. waxaan leeyahay bottom to right, waxaa arkaysaa qaybtan inuu aad. marka waxay ku xiran tahay qaabkii markaas aad u baahan tahay. waxaan filayaa iyadana inay tahay qaab macquul ah oo aadan ku ogeyn VLC. qaybta 8aad, ma ogtahay computerkaaga inuu leeyahay snapshot? dadka badankood waxay u yaqaaniin screenshot ama sawir ka soo qaad shaashada. waxaa rabtaa marka waxba VLC-ga kaaga dhex daaran, waxa kaaga dhex daaran ayaad rabtaa inaad sawir ka qaado oo aad u dirto qof. sidee ugu diri kartaa? waxaad ugu diri kartaa booskii aad u baahan tahay inaad sawirka ka qaadato dultag, kadibna waxaad furaysaa calaamadan view-ga, kadibna waxaad furaysaa advanced control. waa haddii uusan halkan kuu saarnayn, waxaad furaysaa advanced controlka. halkan waxaad ku arkaysaa inuu kugu qoran yahay camera. sidoo kale awood waxaad u leedahay adigoonan halkan dheer aadan tegin. okay, waxaad samaynaysaa marka filinka aad u baahan tahay ayaad dul tegaysaa ama aad daaraysaa, kadib waxaad furaysaa video. halkan waxaad ku arkaysaa take snapshot, kaliya ayaad ku siinaysaa, automatically sawir uu qaaday. waad u jeedaa sawirka ayuu qaaday. sawirka uu qaadayna wuxuu kuu dhex dhigay qaybta ah my pictures. haddii aan furno qaybta my pictures, waxaa arkaysaa sawirkii halkan inoo yaalay inuu halkan inoo yaalo. sidoo kale haddii aad rabtid shortcutkiisa, waxaad qabanaysaa shift plus s ayaa leedahay, automatically waxaad arkaysaa asna inuu kuu qaaday sawir kaagana soo muujiyey shaashada. qaybta 9aad, ma ogtahay in aad awood u leedahay inaad wax mark garaysid ama bookmark wax la dhaho, kaasoo leh VLC-ga, inaad shay aad save garaysan karto. beri markaad u baahato inaad qof tusto, ama tusaale ahaan waxaa dhici karta inaad u shaqaysid company, danna aad u baahan tahay inaad muuqaal yaroo qof kuu keenay ayaad rabtaa inaad tusto meesha ugu macquulsan, haddii uu qaldan yahay iyo haddii uu saxan yahay. okay, sidee marka aad u save garayn kartaa booskii markaas aad u baahan tahay? hadda halkan waxaa halkan inoo yaalo meel uu muuqaal inoo socday, kadibna aan leenahay save. waxaa arkaysaa ninkan farta inuu ka muujinayo calaamad. waxaan rabaa marka inaan qofka tuso meesha uu farta ka muujinayo, waayo way igu adkaanaysaa inaan play dhaho, aan kiskis u soo raadiyo, kadibna booskii aan u baahanahay aan ka raadiyo. si aad u samayso, waxaad tegaysaa qaybtan ay ku qoran tahay calaamadda playback-ga, kadibna waxaa halkan ku arkaysaa custom bookmark. halkan waxaad ku arkaysaa manage, shortcutkiisuna yahay control plus B. kaliya ayaad ku siinaysaa. haddeertaan waxba inooma abuurna, waxaan leenahay create ayaan leenahay, automatically waxaad arkaysaa inuu ku abuuray bookmark. play ayaan leenahay, kan waxaan iska leenahay close. okay, play ayaan leenahay, aan ku tuso. okay, bookmark ayaan mar labaad dooranaynaa. waad u jeedaa muuqaalku inoo taagan yahay. waxaan rabaa dhac gobolkan kale inaan bookmark aan ka sameeyo. okay, cabaar ayaan socday. waxaan rabaa inaan bookmarkii mar labaad haddana mar kale aan soo dooro bookmarka. okay, aan soo doorno bookmark kale. hadda haddii aan rabno marka sidee marka aad dib ugu laaban kartaa bookmarkaaga? bookmarka waxaad dib ugu laaban kartaa, control B ayaa taabanaysaa. isla markii waxaa arkaysaa inuu kugu soo laabanayo. haddii aan doorto marka tusaale ahaan hadda makanaa horey ma ogaan kartid. si aad u ogaatid, kan weynayso, kadibna meeshan ay ku qoran tahay directionka, qabo calaamadan falaarta labada dhinac u bixayso, gees u bixi. waxaa laga rabaa inuu kusoo qoro qaybta 1aad iyo qaybta 2aad. halkan waa qaybta ugu horeysay, waxaa arkaysaa meesha daay aan ka bilaabeynay ee farta ahaa. qaybta 2aadna waxaa ku arkaysaa qaybta uu ka hadlayay actorka ama markaas jilaaga, ama wixii markaas ku daarnaa ee aad rabtay inaad ka qabatid bookmark. qaybta 10aad, ma ogtahay inaad awood u leedahay adigoo daabanayo muuqaal inaad ku soo darsato wax lagu magacaabo subtitle?
subtitle oo lagu magacaabo muuqaalada aad daawanaysid inuu subtitle leeyahay. Subtitle waxaa la yiraahdaa muuqaalka marka aad daawanaysid inuu ku soo qoro qoraal qaybta hoose kaasoo ku turjumaya ereyga ninka uu yiraahdo. Marka ma ahan turjumaan, laakiin ani waxaan ku qiyaasayaa for example Englishka aad dhageysanaysid waxaa dhici karta adna inaad qaab u fahantid balse qaabkaas uusan ahayn qoraalka uu qaabka leeyahay. Si aad u samayso muuqaalka aad u baahan tahay ayaad furaysaa, laakiin waxaa ka horeyso muuqaalka aad daawanaysid in uu leeyahay subtitle. Hadda inkastoo hadda anaga uu inoo leeyahay subtitle waa qoraalka halkan ku qormaya aad arkaysid. Inkastoo inoo leeyahay subtitle haddii ay dhacdo inuu ku lahayn balse aad si gooni u soo download gareysato waxaad ku qoraysaa Google filimkii aad u baahan tahay magaciisa ayaad gelinaysaa, kadibna waxaad leedahay markaad filimkii aad gelisid kabacdina waxaad u raacinaysaa subtitle automatically waa la soo degaysaa. Waxaad arkaysaa downloads inuu ku yaalo. Marka waa muuqaalka aad daawanaysid iyo title-ka aad soo dejisay waa inay hal meel isla yaalaan, hal magacna ay wada haystaan. Haddii ay dhacdo kala meel inuu ku yaalo waxaad samaynaysaa muuqaalka aad daawanaysid ayaad right click leedahay, kadibna waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay subtitle, kadibna halkan waxaad ku arkaysaa add. Haddii ay dhacdo inuu subtitle mid kale ku saaran yahay balse isdib dhaaftay Google gal, kadib filimka magaciisa subtitle-kiisa saxda ah soo raadi. Subtitle-ka saxda waxaad ku heli kartaa muuqaalka aad daawanaysid resolution-kiisa ama magaca ku qoran hadduu yahay Blu-ray waxaa soo degsataa subtitle oo Blu-ray ah. Marka kan ayaad furaysaa add ayaa leedahay. Add markaad tiraadid automatically wuxuu ku raadinayaa failkii marka ama subtitle-kii aad u baahnay double click ayaad siinaysaa. Balay hadaan dhaano automatically subtitle-ka ayuu soo raadinayaa, hore ayuu ka soo helayaa muuqaalkii, sidaas ayuu kugu daarayaa. Qaybta 11aad ma ogtahay inaad awood u leedahay muuqaalka aad daawanaysid inaad speed ku dari karto iyo inaadan ku dari karin. Si aad ugu darto speed ama qaab fast ah ama hore u soconayo way dadka badanaa waxay isticmaalaan arrowyada, balse arrowyada waxaa arkaysaa 5 frame ama 10 frame ama shift marka la taabatid inuu gudbayo 8 frame per second. Marka awoodaad u leedahay asigoon wax frame ka gudbeynin inaad click siiso automatically si tartiiban uu kugu socdo muuqaalkii adigoo arkayo. Si aad u samaysato halkan waxaad arkaysaa inuusan ku oolin wax fast ah. Si aad ugu soo darsato waxaad furaysaa meeshan ay ku qoran tahay tools, kadibna waxaad dooranaysaa customize interface marka aad dooratid wax yar ayaad hoos u soo degaysaa, waxaad raadinaysaa meeshan ay ku qoran tahay fast iyo slower. anaga waxaan dooranaynaa fastiga ayaad click siinaysaa, waa soo qaadaysaa, waxaad dulkaynaysaa meeshii aad isdhigi kartid aleelahay way ku habboon tahay. sidoo kale waxaan soo qaadaynaa qaybta lowga, asigana waxaan geynaynaa qaybta ka horeysa si aan u ogaano dhinacaana inay tahay soo celis, dhinacaana inay tahay hore u wadid. kadibna waxaad leedahay close, isla markii waxaad arkaysaa inuu kugu soo darsamo laba feel. si aan u hubino waxaad furaysaa muuqaalkii aad u baahan tahay inaad daarato. muuqaalka markuu sidatan u daaran yahay aan geyna booski, muuqaalka markuu sidatan u daaran yahay click ayaan siinayaa, waxaa arkaysaa muuqaalkii inuu ku socdo si speed. haddaan ku sii celiyo waxaa arkaysaa inuu si speed gareysmay, haddaan ku sii celiyana waxaa arkaysaa inuu speed sii qaatay. waxaad awood u leedahay inaad click siiso, haddana waxaad arkaysaa inuu speed noqday. haddii aad rabtid inaad caadi ka dhigatid space kaliya ayaa taabanaysaa, waa ku celinaysaa. okay, waxaa arkaysaa weli inuu speed yahay, kadibna dib ayaad usoo laabanaysaa, waxaa ka dhiganaysaa booskii ayaad markaas u baahan tahay. haddii aad rabtidna waxaa awood u leedahay inaad ka dhigatid slow, you see sida u soconayo. marka waxay ku xiran tahay dependent qaabkii markaas aad u baahan tahay, waa sida caadiga ee basigiisa ah. okay, waxaan u malaynayaa asna in aad si fiican u fahantay. qaybta 13aad ma ogtahay inaad awood u leedahay inaad VLC-gaaga aad ka dhigan kartid dhowr multi windows. for example waxaan rabaa inaan kuu sharxo waa maxay multi windows. haddii aan kan daaro waxaad arkaysaa inuu kan ii daarmay, haddii aan kan daaro waxaad arkaysaa inuu kan ii daarmay, haddii aan soo qaadadan kan aan daaro kii hore daarnay ayuu joojiyey, midkan dambe aan soo geliyey ayuu sii dib daaray. waxaa rabtaa marka kan oo daaran inaa mid kale ka daba kiciso, mid kale ka daba kiciso, mid kale ka daba kiciso. sidee u samayn kartaa? waxaad u samayn kartaa waxaad furaysaa calaamadan toolska, kadibna waxaad dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay performance marka aad doorato waxaad ka dooranaysaa interface oo ah qaybtan oo halkaan ah. interface-kan markii aad doorato waxaad tigta kaliya ka qaadaysaa meeshaan ay ku qoran tahay integrate
video interface kaliya ayaad saaraysaa kadibna save ayaad leedahay haddii aan dhahno hadda waan xiraynaa for example waxaan ku kicinaynaa VLC okay aan kicina VLC open with VLC aan browse gareeno okay aan yareeno waxaa arkaysaa another VLC inuu inoo kacsan yahay marka iyadan waxaan u malaynayaa waa qaabka ugu fudud ee aad ku samaysan kartid multitasking waxaan u malaynayaa qaybta 12 aan ku sheegay qaybta aan 13 ku sheegay inay ahayd 12 qaybta 13aad waxay noqonaysaa ma jeceshahay marka aad furaysid VLC gaaga waxaad arkaysaa marka aad furtid muuqaal VLC gaaga inuu si caadi ah noqonayo haddii aad rabtid marka aad rabtid inaad furtid muuqaal si automatically full screen ka waayo dadka badankooda full screen ku waxay u yaqaaniin markaad muuqaal furtid inaad F taabato si uu shaashada kugu weynaado ama inaad double click siiso si uu shaashada kugu weynaado balse waxaad awood u leedahay muuqaal walbo aad daaraysid inaad automatically full screen ka dhigto si aad ugu dhigto waxaad furaysaa qaybtan ah tools kadib waxaad ka dooranaysaa performance kadib waxaad sii tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay videos kadibna halkan waxaa saaraysaa tigta ay ku qoran tahay full screen ka markaa saarto oo aad save garayso film walbo aad markaa soo furto waxaad ogaanaysaa computerkaaga si toos ah inuu u furaayo full screen qaybta 14aad ma ogtahay inaad awood u leedahay muuqaal walbo aad daawanaysid adigoo ku daawanaya VLC in uu ku geeyo wallpaper-ka ee computerkaaga ah ama aad ka dhigato set as wallpaper sidee ugu dhigan kartaa muuqaalkii aad u baahan tahay aad furaysaa adigoo furaya media kadibna aad dooranaysid muuqaalkii markaas aad u baahan tahay mar alaala markuu muuqaalkaagii sida tan kugu daarmo aan weyneeyo muuqaalkaaga mar alaala markaas sida tan ku aragto kadib kaliya waxaa leedahay right click kadibna waxaad dooranaysaa videos kadibna waxaa ka dooranaysaa halkan ay noogu qoran tahay set as wallpaper click markaan ku siiyo automatically waxaa arkaysaa computerkaaga muuqaalkaaga aad daawanaysay in uu si toos ah u galay set as wallpaper-ka qaybta 15aad ma ogtahay inaad awood u leedahay adoo isticmaalaya VLC muuqaalka aad daawanaysid inaad tiraadid zoom kaasoo ah muuqaal ama sawirka aad daawanaysid inaad tiraadid si fiican ii tusi ama inaad tiraadid gadaal u celi sidee u samayn kartaa muuqaalka aad daawanaysid dul tag kadibna waxaad furtaa videos kadib waxaad furtaa zoom kadibna waxaad ka dooranaysaa aspect ratio-gii aad markaas u baahan tahay ama haddii aad u baahan tahay aspect ratio-ga ee caadiga ah tusaale ahaan haddii aan rabo inaan hadda waa default haddaan rabo inaan ka dhigo 4:3 waxaad arkaysaa inuu noqonayo 4:3 waxaa fahmi kara dadka kusoo shaqay jiray VHS-yadii hore marka haddana furto kadibna aad doorto aspect ratio-ga kadibna aad ka dhigato 16 haddana aad ka dhigato crop-ka kadibna aad ka dhigato 1:1 marka waxay ku xiran tahay dependent qaabkaad adiga u baahan tahay balse anaga hadda waxaan ku dhaafanaynaa default-iga sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad samayso crop adigoo ka soo jarayo kor hoos adigoo awood u leh waxyaalo badan ayaad ku samayn kartaa oo aadan VLC-ga aadan ka warhaynin sidaan filayo wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe iyo like inoo tiraada page-ka sidoo kalena aad share garayso si ay u hesho asxaabta kale sidoo kalena inaad saarato tigta ama gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed Abuukar waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu